بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore ilaahay baa mahad iskale waxaan joognaa gobolka Sanaag khaas ahaan degmada Ceerigaabo haddii aad amniga wax iga weydiisay magaalada amnigeeda 2 sano loo soo hanjabay labadaas sano anagu dhageystayaal baanu ka ahayn maalin walba waxaan lahayn kana dhageyso maanta laakiin dhageysan mayno haddii la qaxi lahaa qaxi mayno haddii la guuri lahaa guuri mayno Ceerigaabo annaga u dhalanay annagay deegaankayagii tahay annaga ninna marti ugu ahayn maantana waa la ogaan doonaa Ceerigaabo ninka degan iyo ninkaan deganeyn annagu waayo hadda ilaa iyo maalintii ciidanku gooja cad ka soo baxeen hanjabaad baan dhageysanayna hanjabaadda mar waaxida kama aanan jawaabin maalin waaxida kama aanan jawaabin laakiin maanta laga bilaabo oo ay tahay bishii 12aad ay maanta koow tahay anagu horta cidna ku duulimayno laakiin cid allaale cidii isku soo dayda deegaamadayada ama khaas ahaan gobolka Sanaag inta aanu Soomaaliland ay ka jirto cid ku soo duusha ma ogolin idinku shacab baatiin ciidankii qarankana waa kaas hareeraheena jooga ciidanka qaranka waxa ka horeynaya shacabka yaga waa ka horeyn doona insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waxaan ku dadaalaynaa inaan anigu horta shakhsi gobol kale ka soo hanjaba anigu awood u arko waxaan awood iyo raganimo u arkaa ninka noogu yimaada degmada Ceerigaabo ama si gobolka Sanaag noogu yimaada ayaan geesi u aqaana nin kastaan waa diyaar shacabku waa diyaar ciidanku waa diyaar shacabkana annaga ka horeyn doona cid kasta oo isku daydana gacan biraanu kaga jawaabi doonaa haddii ciidanku ay ka soo baxeen gooja cad oo iska soo baxeen oo ragu haysto Ceerigaabo inay gooja cad tahay wallaahi waa la isku baran doonaa bilaahi aad iyo aadna wadi salaamay